السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daba for Education and Research Institute. Maanta waxaan bilaabanaa koorso ka mid ah koorsooyinkeena multimedia ama basic multimedia kuwaasoo ka koobnaan doona basic multimedia waxay ka koobnaan doona 4 application ay ka koobnaan doonaan kuwaasoo lagu dhigan doona 2 bilood haddii ilaahay idmo bisha koowaad waxaa lagu dhigan doonaa 3 application oo aad muhiim u ah video preparationka iyo shay ahliya recording oo kale waa Camtasia iyo Filmora iyo waxa la yiraahdo Audacity. Filmora iyo Camtasia Audacity waa 3 application oo saddexdaba labadan waxaa lagu habeeyaa waxa la yiraahdo recording screen oo lagu sameeyaa in screen-kaaga ku diyaarsatid sidoo kale Audacity asna codka ayaa lagu hagaajiyaa sidoo kale second month oo kale insha Allah waxaan bixin doonaa waxa weeye Adobe Photoshop. Marka waxaan u diyaarinay basic multimedia waxaan u diyaarinay saddexda afarta ab hadaa ardaygu dhameeyo inuu diyaar u yahay inuu si fiican ugu shaqeysto waxa la yiraahdo multimedia sababtoo ah Photoshop-kan wuxuu ku sameynayaa app-kay waxa la yiraahdo mataqaana haday looga noqoto haday kaaris noqoto haday noqoto maxaa dhahay shahaadooyin haday noqoto wax walba insha Allah ayuu ku shaqeyn doonaa ilaa iyo 12 meelahaas barnaamij oo mataqaana business cards iyo kale waxaas oo dhan ayuu awood u yeelanay inuu ardaygu sameeyo sidoo kale wuxuu awood u yeelanay inuu cashar bixiyo ayuu u yeelanayaa qofkii dhigtahay koorsada Camtasia la yiraahdo qofkii dhigtaa inuu cashar bixiyo ayuu awood u yeelanayaa sidoo kale Filmora waa Camtasia ka agdhow yahay laakiin xogaa uu ka fiican yahay oo shirkadda laba shirkadood soo kala saaro oo waa labadan waxa u soo xulanay waxa jirta intaas oo xabbo oo video maxaa la yahay screen recorder ah video editing ma jira laakiin labadan waa labada adduunka ugu caansan insha Allah meelba markii si gaar ah ugu tagi doon Audacity asagana dadka markii aad codka duubtid oo kale ama qalab kale cod ku qabatid ayaa wax kaga saaraysa wax kasta oo codkaas mataqaana aan clear ka dhigay ayaa kaga saari doonta okay haddii aan si guda galo koorsada koowaad aan ka qaadanayno marka afarta koorso la yiraahdo Camtasia xaggan waxa ka muuqda waxa waa curriculum-ka Camtasia curriculum-kan maadaama application ay tahay saddex meelood baa ka fiirina horta intee dhayba soconaysaa muhiim u qofku inuu ogaado sidoo kale intee topic baa qaadan doonaa sidoo kale topic-yada outline-nada yeelan doonaan ama waxyaalahan mataqaana main-ka noo ahaan doona ama wax badan ku dhex sharaxi doona maxay noqon doonaan okay day 1 oo kale baan day 1 waxaan qaadan doonaa lesson 1 waxaan noqon doonaa insha Allah sida hadda baan ku guda jirno inaan sharaxan horta topic-yada outline-nada ka kooban tahay sidoo kale isku diin waa maxay maxaa u isticmaala Camtasia maxaa loo isticmaalaa sidoo kale see loola soo degaa ayadana inaan isweydiino ayaa la sugana kuwada ku qaadan la sugana labaad day 2 waxaan ku qaadan xali understanding interface application interface-kiisa inaa fahanto markaas ku shaqeyn kartaa tools wax liya arki doona canvas wax liya arki doona timeline wax liya arki doona insha Allah sidoo kale 10 saddexaad oo kale waxaan qaadan doona wax la yiraahdo screen recording si loo maamulo screen recording laba cod baa jira iyadoo si wax kale yihiin si loo maamulo waxaas oo dhan ayaan baran doonaa sidoo kale shaashada sida screen-kaaga loo maamulo ayaan baran doonaa sidoo kale marka wax duubtid exports loogu sameeyo habab kala duwan insha Allah ayaan baran doonaa 10 saddexaad 10 afraad oo kale asna waxaan ku baran doonaa waxa la yiraahdo video editing ina videogi mataqaana la nimaado timeline-ki meel yiraahdo sidoo kale videogiis ilaa 3-4 hab oo split loogu sameeyo videoga loo jarjaro oo loo habeeyo sidoo kale habab badan oo videoyada loo dhiliido habkaas xataa ay ka mid tahay rabal lead wax la yiraahdo asna arfaasida sidoo kale stitch mid la yiraahdo barnaamij la yiraahdo oo videoda marka aad kala jajabisid oo wixii marka ay raaco wixii khalad ka saari si isku keen lahayd ayaan ku baran doonaa waan 10 afraad waa video waxa la yiraahdo preparation ayaan ku baran doonaa ama video editing sidoo kale waxaan ku baran doonaa library-yada marka aan sii gudubno library wax ayaa baran doonaa icons wax waxay qabtaan waxay yihiin sidoo kale intro wax ayaa baran doonaa lower third wax ayaa baran doonaa sidoo kale motions ayaan baran doonaa sidoo kale music streaks ayaan baran doonaa sidoo kale autos wax ayaan baran doonaa oo aad u tiro badan oo library dhan oo video-gaaga aad mataqaana ka qurxin kartid okay dhayga lixaad oo kale asna waxaan baran doonaa annotations wax la yiraahdo waa waxyaalo badan oo marka video diyaarinaysa u baahan tahay isticmaashada arrow-yada kale goobada kale jira waxa la rabtay dadka inay u tilmaanto khalad ay kale si u saarnaa waxaas waa library dhan asna
soki shapes oo kale blurries waxa la yiraahdo mataqaana waxa u baahan inaad ka qaraxsi video wixii oo kale waxaan maraynayn badan waa arki doonaa insha Allah soki missions waxa la yiraahdo video dhaqdhaqaaq oo kale sidoo kale keywords iyo keywords markii la sharaxay 10 si loo dhexgeliyo insha Allah 10 ku xigo toddoba asna ku sharaxdo transitions waxa la yiraahdo si wax u dhaqdhaqaaq behavior-ka mataqaana video yeelan karo animation-ka video isku rogrogi karo iyo waxyaalahaas oo dhan maadaama course aad u muhiim ay tahay intaas oo dhan inay baratin waa muhiim intaan oo dhan waxay xiriir la leeyihiin markii video preparation-ka video edit-ka laga soo tago intaan video ay xiriir la leeyihiin halka markan video-ga aan meel isla saarno insha Allah 10 sideed waxa dhigan doona xiriir hado audio editing baan dhigan doonaa si codka loo separate loogu sameeyo video codka si loo kala saaro sida mataqaana cod loo soo gashto sida mataqaana voice mataqaana loogu duubo sida mataqaana Addison cod kale loogu soo waxaas oo dhan ayaa ku dhigan doonaa 10keena sideedaad ama 8 soo kale waxaan dhigan doonaa xaliya background manipulation background si loo maamulo haddii noqoto background in laga saarayo sawir ama video haddii noqoto in la soo gelinayo haddii noqoto captions wax la yiraahdo qoraallo hoos ku soo qormiyo kale iyo si art captions loogu soo diro xasna ayaa ku dhigan doonaa 10keena sagaalaad wax background la yiraahdo ka hadli doonaa 10ka marka tobnaad ayaan wax ugu tagi doonaa xaliya zoom in iyo zoom out ya meesha rabtina wax soo dhaweysay video meesha rabtina fogeysay soo kale waxa ugu tagi mobile frame ina mobile caadi sameeysid oo hadda si xaysiinyo kale markii mataqaana mobile caadi oo saan loo rogayo oo mobile frame waxa la mobile frame bal yaa iyo si loo sameeyo soo kale ina mataqaana desktop frame ku kale waxa soo dhan aan sameeyno insha Allah soo kale ina mataqaana si timeline-ka loo rogan karo meesha loo qaadi karo meelka la geyn waxyaalahaas ina barano insha Allah ayaan isku day doonaa 10keena tobnaad soo kale 10keena marka soo gaarno 11aad waxa aan baran doonaa in summarization ku sameeyno 10radii oo dhan ina video preparation oo wata audio-giisi iyo video-giisi iyo recording-giisi inaan duubno oo complete ah insha Allah ayaan isku day doonaa dhiga 12aad wuxuu noqon doonaa general exam oo wixii mataqaana soo dhigatay in exam yar laga qaado marka outline-kani waa koob iyo 10 bari iyo maalin exam ugu dambaysa haddii aad dhigatay intaan yani waxa tahay kamitaashiya cid dambe u doo fariisanaysa waxay noqon doontaa wax iska easiya aad u fudud oo mataqaana farday wala carar adduunka maantana wuxuu noqdayba technology marada noqdo waxa u baahan tahay shay kasta eray kasta dhaas wax ku soo gudbisid oo baahan marka waxyaalaha muhiimka dhigaya in si advanced ah u dhigno okay hadaba maanta dad guda galno topic-keenan oo lesson 1 ah la soo sharaxna outline-ka already ka wanaga baxay okay hadaba waa maxay way aan isticmaalna camtasia aan dhigayno maxay tarasaa maxaa loo isticmaalaya waxaas oo dhan aan isla eegno camtasia markii laga hadlayo waxa la yiraahdaa camtasia waxa weeye waa program multimedia ah kaas oo laba waxyaalood loo isticmaalaa in laptop ama wax ku duubisid mataqaana screen recorder-keeda uu qabto badanaa waxa ku shaqeysaa operating system-ka la yiraahdo Windows-ka ayaa ku shaqeysaa okay inta wasla fahanay waa video waxa la screen recorder weeye waxa ku duubasaa face-kan hadda ama laptop-kan ama desktop-kan wax ka duubisid face-kiisa ayaa ku duubasaa okay kaas waa muhiimada koowaad ee loo barto camtasia muhiimada labaad oo camtasia loo barto ayadana waxa weeye inay tahay video editing professional ah video ku jarjaran kartaa ku habaysan kartaa waxba ku soo dari kartaa video effective leedahay waxaas oo dhan marka labadaas waa labada ujeedo ugu badan loo isticmaalo waxa iskale application shirkad la yiraahdo shirkad la Tech Smith baa iskale waxa isticmaala 24 million people baa isticmaala waa soo baari kartaa website-keeda tagi kartaa mar walba inaad dhigtaa muhiim website-keeda tagi kartaa 24 million of baa isticmaala xagaas marka muhiimada ay leedahay marka loo fiiriyo multimedia kale ama loo fiiriyo waxyaalaha kale wax lagu duubo ayaa ka dareemi kartaa soo kale waa maxay waa one markii qeex yar loo sameeyay ama fahan yar oo soo dhaweyn loo sameeyay waxa weeye waa mid ugu muhiimsan multimedia kuwaas oo loo isticmaalo laba hab screen recorder iyo wax la yiraahdo video editing waa labada ujeedo tan ugu fiican ugu habaysan oo ilaa 24 million oo dad isticmaala waa sababta marka aan u sharaxano in loo isticmaalo okay hadaba si loo soo deeyay marka waxa loo soo deeyay laba hab ayaa jira hab waxa jirta legal ah oo waxaan shirkad baas kale habka legalka marka muxuu noqon doonaa habka legalka waa kan okay habka legalka waa kan waa ina camtasia chrome-kaaga tag opera-haaga tag any browser tag camtasia ku qor camtasia ku qodha
okay hore wuxuu kaaga saaraya download garayso waa mid free ah oo Windows baa lagu talagalay marka download garaysatid soddon beri meelahaas trial ah bogsiinaya hadhowna buy waa gadanaysaa marka lacag buu joogaa waa midka legalka oo sharciga oo sida mataqaanaa shirkadda soo saadhay mataqaanaa ay u baahan tahay soo kale sharxaadiisa iyo waxyaalaha uu ku qabanay waxa oo dhan ayaa halkan kugu qoran iyo featureskiisa iyo haddii ay gadatid waxa uu ku fiican yahay soo kale waxa jirta marka hab kale oo asna illegal ah oo adoo aan gadanay la soo degi kartid maadaama dee arday aan wax barano waxa muhiim noo ah waxa way ardaygu soo ku awoodi karo programkan ina mataqaanaa anoo aan sameeyno laakiin nagama ahan ina mataqaanaa aan bias iyo dhibaato aan sameeyno oo aan faafinano wax illegal ah sorry taas waa ka xumahay laakiin maadaama ardaydu iska mataqaanaa dayro badan tahay ina mataqaanaa habab kale ka duwan oo si wax loo heli karo inaan la wadaagno aad buu muhiim tahay okay waxa tagaysaa Chrome-ka wax ku qoraysaa get into busy waa garan karnaa haddii aadan garanayna hadda bar waa meelaha ugu badan oo laga helo waxyaalaha mataqaanaa activate-ka ugu baahnayn ama product-kii uu ka maqan yahay baa la yiraahdaa waa website ama database waxa la yiraahdaa get into busy baa la yiraahdaa okay marka saa u tagtid oo aad qodid saan kugu soo baxaya marka inuu iska hubi linkiga inuu sax yahay getintobusy.com marka linkiga heshid waa ku dhufanaysaa okay hadhow saan kugu soo baxaya saan marka kugu soo baxo meeshana tagaysaa wax ku qoraysaa commutation ku qoraysaa commutation marka ku qodid habkan ayay kugu soo baxaysaa version ugu dambeeyay 5 months shimbirad ka hor baa version soo saara soo kalkan 1 year ka hor baa soo saaray waana ka hadda isticmaalayo 22 marka haddii aan isla fiirino marka hadhow insha Allah ana hadda wuu igu jira already hoos bi yala marka oo 22 weey ka aan isticmaalayo haddana shimbirad ka hor waxa soo baxay 2022 okay marka haddaba downloadinkan ku dhufatay waxa ku soo bixi doona habkan ayuu ku soo bixi doona habkan ayuu ku soo bixi doona habkan ku soo baxo 2020 download garayso habka hoos baa soo raacay hoos marka soo raacay hoos soo raacay halka wax ku sheegaya waxa commutation darteed soo download garaysatay waxyaalaha laga rabo marka waa in magacaadii ku sheegaya WinRAR in laga rabo ku sheegaya WinRAR fahansanay boxka mataqaanaa files kala duwan qaada size-keedu ku sheegaya xasnanayo ku sheegaya isheeg waxa la 64 bit ama system-keedu ku sheegaya okay hadda waa kuwan marka wax laga rabo waxyaalaha iyadu ay leedahay sorry waxyaalaha iyadu ay leedahay laakiin waxyaalaha laga rabo kuwan in operating system-ka uu yahay Windows soo kale RAM-kaagu inuu halka badan yahay waxa la tahay kombiyuutarada dambe waxa madax ka saarayaan soo kale hard disk-kaagu 500 ka badan yahay soo kale inuu dual core wixii ka dambeeyay yahay processor-ka marka waxyaalahan waa iska basic way okay haddaba marka cracking marka lagu sameeyo halkan ayaa ku dhufanaysa how to install this software ayaa ku dhufanaysa halkan marka ku dhufatay video yar oo 2 minute ah baa daawanaysa process uu ku leeyahay mar website-kan baa maraysa si free ayaa kula soo dhigi doonta hadhow marka download garaysanaysa halkan ka download garaysanaysa intaas weeye marka aad la soo dhigaysid application-kan marka anu waxaan kugula talin lahaa haddii aad rabtid inaad ku shaqaysatid kado waa ku xalaal midda kale waxa ku goosatid waa ku xalaal sidoo kale markii mataqaanaa gadatid crashka iyo waxyaalo badan ayaa aadan dareemin sababtoo waxa dhici karta waxaan maradu illegal yahay oo soo waxa soo crash gareeyay uu yahay in mataqaanaa saa wax ugu duubisid markuu meel xamar ayaa iska tagaa ayaa dhici karta waa possible weey marka sababtoo wax mataqaanaa had darbi ka soo gashay marka anigu waxaan kugula talin lahaa in aad gadatid laakiin marka hadda aad baranaysid oo rabtid application marka u bogtid oo ku shaqaysanaysa gado laakiin hadda marka rabtid inaad baratid habka loo soo day get into busy tag magaci ku qor intii hadda aan marnay soo mar marka insha Allah waxaan rajaynayaa in aad maanta isla fiirinay wax la yiraahdo ina maanta isla fiirinay wax la yiraahdo outline-kii course wax ka koobnaan doonto soo kale isla fiirinay wax la yiraahdo way aan isticmaalnaa kamtaasiya soo kale habkee oo soo degi kartaa intaas inaan isla fiirinay soo kale haddii waxa dhici karta dad mataqaanaa inay daawanayaan ama ay mataqaanaa ay soo gaaro inay halkan ka sii wadaan installation ma sameyn macallinkii may mar haddii illegal uu yahay wax kale kaama baahna in video yarka daawatid bukaaga bahaya marka si ula digleeyay wixii oo dhan marka la degtid xaqan hoos kugu soo qoray dharag wixii dhagaas ka helaysa markii si caadi ah gadanaysin oo la soo degaysin iyaga ku hagaya oo mataqaana xaqan taa lacagta iska bixi baba kule marka saas ayaa installation ugu dhameynay anigu igu jiraa waa kan asoo aan gatay oo mataqaana lacag ah marka insha Allah waa inoo 10kan iyo 10 ku xiga oo noqon doona bal horta in application-kii isla soo kicino ina isla fiirino waxa la yiraahdo application-ka
أنا أصلا في إنه application interface كيس إن شاء الله أوتلاين كان وحنا عندنا ميدان كسو حسوسيو وقتي متقانا كورسو كودا ما تسي وحي آد سو برتي آدو هيست إن شاء الله أنت وحكا دم كورسو وحنا عندنا أنت براكتيس أنت أنا وحي كورسو ده لسن كده وهري لسن كاس أو متقانا هردعوها كورسو